بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel kastoo aad joogtaan iyo waqti kastoo ay idin tahayba waxaan idin leeyahay soo dhawaada waa mar kale iyo sooyaalka dhaqanka oo idin soo gudbinaya casharo ku saabsan fanka iyo suugaanta Soomaaliya sida aynu ognahay Soomaalidu waxay leedahay fan iyo suugaan ama marka laga hadlayo fanka iyo suugaanta waxa la israaciyaa waxa la yiraahdaa fanka iyo suugaanta marka horta ereyga fan ma Soomaaliba mise waa Carabi ugu horeyn bal aan isweydiino ereyga suugaanse ma Soomaaliba mise waa Carabi waa in aan isweydiino si aynu u helno xogo badan aynu dib ugu laabano soo jireenkii iyo sooyaalkii hore ee Soomaalida fan marka la yiraahdo waxa loo yaqaanay wax khaas ah oo qof uu ku takhasusay sida fardafuulka qaabka faraska loo fuulo waxa la yiraahdaa fan qaabka geedaha loo qoro waxa la yiraahdaa fan qaabka legdinka loo sameeyo waxa la yiraahdaa fan oo waxa la yiraahdaa qofkaas wuxuu fan ku yahay sida legdinka qofkaas wuxuu fan ku yahay sida fardaha loo fan saaro ama faraska loo fuulo qofkaas wuxuu fan ku yahay ama ku fiican yahay sida wax loo qoro haday tahay farta caadiga oo farta Soomaaliga la qorayo oo la qurxinayo ama se geedaha la qorayo ee laga qorayo sida waxyaabaha aynu isticmaalno kasha oo kale mooyaha oo kale kurbinta oo kale barkinka oo kale erayadaas dib baynu ka macnayn doonaa dadka ku takhasusay iyagana waxa la yiraahdaa fan ayaa la yiraahdaa waana erey Soomaali ah asalkiisa marka waxa la isku qaldaa ereyga fanaan iyo fan fanaan waa erey nooga yimid wadanka ama wadamada Carbeed ama afka Carabiga luqadda Carabiga nooga yimid fanaan waa erey Carabi ah fan laakiin waa erey Soomaali ah okay markaan fanarkaas aan uga gudubno suugaan waa erey Soomaali ah oo sax ah Soomaalida hore waxay oran jireen marka ay sahmiyaan meel hebla waxay leedahay suugaan yaani waxa laga wadaa meel hebla waxay leedahay meel xoolaha u fiican oo daaqsin fiican leh oo deegaansigeedu uu wacan yahay oo xoolaha u roon marka dadka sahmiya waxay oran jireen meel hebla suugaan ayay leedahay macnaheedu waa wax fiican bay leedahay oo xoolaha u fiican hadaynu u soo noqono ereyga fan iyo suugaan keeba facweyn waxa facweyn ereyga fan ayaa facweyn suugaantu waxay hoos timaadaa fanka matal ahaan hadii aynu u soo qaadano in ama tusaale ahaan hadaynu u soo qaadano fanku in uu yahay geed suugaantu waxa ay noqonaysaa laan kamid ah geedka matal ahaan tusaale geedku wuxuu leeyahay laamo badan laamaha uu leeyahay waxa kamid ah laanta suugaanta baa kamid ah laanta waxa kamid ah farshaxanka laanta waxa kamid ah geeda qarowga laanta waxa kamid ah ciyaaraha marka fankii hadaan geed u soo qaadanay suugaantuna ay noo noqotay laan kamid ah geedkii suugaanta ayaa waxa ay leedahay qaybo kala duwan oo maxaa kamid ah waxa kamid ah gabayada geeraarada buraanburada suurowga saarka wax alla wixii marti ah ee la tiriyo marka laga reebo mahmaahayaha ayaa la yiraahdaa suugaan mahmaahayada laftkoodu waxay soo galayaan suugaanta laakiin suugaanta qaybaheeda ugu waaweyn waa inta aynu horay u soo sheegnay suugaanta marka waxay u sii qabsataa baan gabayo heeso geeraaro buraanburo suurow saar wixii la halmaala heesaha ayaa markaas iyaguna waxay u sii qaybsamayaan qaybo kala duwan waxaa jira maadaama anaga Soomaali hadaynu nahay asal ahaan iyo dhaqan ahaan aynu nahay dad beeraley ah ama xoolo dhaqato oo reer guuraal ah suugaanteenu waxay ku salaysan tahay
dhaqanka miyiga ama beeraha ama xoolo dhaqatada ama beeraleyda labadaas unbuu kasoo iskumaa dhaqanka Soomaaliya suugaantooduna suugaanta Soomaalida waxay ku saleysan tahay labadaa midood. Okay, marka awrta la rarayo oo ciddu ay geedi tahay oo kale waxaa jira waxyaabo lagu raro awrta oo kale si marka la rarayo culeyska looga fududeeyo oo u dareemin oo loogu luuqeeyo. Matal ahaan ninka markuu awrka rarayo waxa uu akhriyaa waxa la yiraahdo salsal. salsalkaas tusaale ahaan waxa uu leeyahay hadaan tusaale yar aan soo qaadano sida caynku ku gubayba cagtu ii daloosha. sida caynku waa xariga dhexe ee isku haya rarka awrka ileen awrka lama raro xarga la'aan waa xariga isku haya kabaalada dabageliska isku haya oo inta aan wax kala la saarin marka la saaro ugu dambeyn kabada qabtalka qof sidoo u yaqaan kabada qabtalka la saaro kabacdi ayaa xargaas lagu xiraa cayn baa la yiraahdaa waa lagu caymiyaa wuxuu qabtaa meeshan sakaarka oo ratigu uu ku fariisto iyo caloosha dhexdeeda ayuu qabtaa waa xarig aad u haya rarka awrka marka waa la dhuujiyaa aad baa loogu giijiyaa wuxuu isku hayaa labada kabaal ayuu isku hayaa oo la isugu xiraa. marka wuxuu yiri ninkii salsalka aan akhrinaayay awrkiisa u salsalahayay sida caynku ku gubay baa ana cagtu ii daloosha calashan sida caynkaasi uu ku gubayo oo kugu dhigan yahay ayaan kaaga naxayaayo anna ay cagtu ii daloosha. insha Allah ta'ala waa qaybteena dambe iyo barnaamij badan oo xiiso leh insha Allah ta'ala. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.